الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. maanta waa maalin ciid ah ilaahayna subxaanahu wa ta'aala haynaga aqbalo farxadda iyo reereynta ciidu ay leedahay waxaan la wadaagayaa dhammaan walaalaha muslimiinta meel kasto ay joogaan taqabbal Allahu ta'atakum wa kullu aamin wa antum bikhayr. waxaan rabaa inaan ku baraarujiyo walaalaha muslimiinta meel kasto ay joogaan maadaama ay tahay maalin farxad ah in looga faa'iideysto maalinka farxadda ah in quluubta la isku soo jiido oo dadka walaalaha ay wax ka dhaxeeyaan waxa weeyaan laga shaqeeyo inay heshiiyaan oo cadaawadda haday yihiin kuwa wada dhashay haday yihiin kuwa qaraabo ah haday yihiin kuwa saaxiibo ah haday yihiin kuwa ganacsi ka dhaxeeyo haday yihiin kuwa waxyaalo kale ka dhaxeeyaan haday yihiin kuwa daris ah waxaan rabnaa inaan ku baraarujino walaalahaas meel kasto ay joogaan in laga shaqeeyo maanta looga faa'iideysto al-islaax bayna an-naas. nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wassalaam ma idin tusaa wax ka fadli badan soonka iyo salaada iyo sadaqada qaaluu balaa ya rasuul allah islaaxu daati albayn ayaa nabigu yiri calayhi salaatu wassalaam dadka walaalaha ah dhexdooda oo islaax iyo wanaag la dhiga way wa fasaadu daati albayn hiya alxaaliqa walaalaha dhexdooda oo cadaawad iyo shar ay ka taagan tahay waa midda xiiraysa diinkooda midda baabi'inaysa oo xiiraysa weeyaan walaalayaal islaaxa aan ka shaqeyno waxaan kaloo ku didaalna walaalayaal barakallahu fiikum alcafu inaan iscafino oo waxa weeyaan qalbigeena isku saafi garayno oo qofka walaalka ah oo waxyaalo aan munaasib ku ahayn kugu sameeyay say doonto ha ahaatee maanta waa farxad waxaad kaga faa'iideysataa inaad tiraahdo walaal waan ku cafiyay adiguna ay cafi ciidukum almubaarak taqabbal Allahu ta'atakum kullu aamin wa antum bikhayr kalimaadka wanaagsan ku dheh qalbigiinu suu iskugu yimaado walaalkaaga mu'minka cafi وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا أضون عفو بحيي إلهي وما زياديو إلا عز الشرف بإلهي وزيادني سبحانه وتعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم هعفي هدافين مين نتشعل إلهي إنه يدين دافه ضدك هل عفي ولا ليال هذا ودها هلا إسكسار مدة صدحادي وحويان إن لا يسكن حريسته ومساكينتا laga farxiyo oo aan la iloobin ee waxa weeye farxadda ciid aysan iloosinin walaalaheena masaakiinta ah oo dabku ka seexday oo waxba aan haysanin waxa weeye inaan dayacno waa ka nabigu yiri calayhi salaatu wassalaam qofka u taagan miskiinku wuxuu la mid yahay qof sooman oo aan afurahayn qof habeenkii oo dhan khayr salaatu leel u taagan oo waxa weeye marna aan daalahayn oo aan ka seexanahayn buu la mid yahay khayrka isaga aan ka qayb qaadano qaraabada aan xiriirino wuxuu nabigu yiri calayhi salaatu wassalaam man ahabba أن يمد له من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه قفك أي فرح قلنا يسو إن عمرك يسلو زياديه رزقك سنة الله واسعيه إنه حالات حن كل انتنا لقى إلاليه وصحن كل انت لقى إلاليه إلهي كعب صدا قرابتنا حريري وكان النبي عليه الصلاة والسلام صلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار قرابة الحريرية يدرس نما وناقة وحي زياديان عمرقة وحين عمران ديارته يقوليها عمران أخلاق ذا وناكسن وبشا بركيسان أن كده حلني وقف كسون كيس إلى شنيي ووحنا دن إسك إلى لنهي أخلاق ذا سو أخلاق ذا إلى الرالي كيهي أيضا أن كسرنانه حالات كسته وقت كسته نبي وحيري عليه الصلاة والسلام قفك مؤمن كأ وحكوها ليلة وكجاريا بحسن خلقه وحكجاريا درجة سرع وقفك الصائم كأ يقفك متقانا وحويان صلاة بدن يخير كبدن أيو وحكجاريا وحويان بحسن خلقه أيوكوها ليلة كجاريا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا مؤمنين توحى إيمان كامل نمبضا كانوا أخلاق ونكسن وحميزان كلا سعره هو كعون ليسين بدني متشران ما لنت قيامها من حسن الخلق أخلاق ذا ونكسن وحكى في عن مله ولا ليال هدي بشي بركة سنين أي نوع ما عطي معنيه ضمها عبادات القعد معه صون كلا آيات شره أو ستة من شوال لحدا مع الماضي بش شوال لقى الصومع وحيلم التهي يصون كي هرال الصومي qofkii waxay u noqonaysaa asagoo sanad kaamil soomay bay u noqonaysaa haddii waxa weeyaan taraawiixdii
أتقان أي استاجتي صلاة الليل كما استاجين هبين كستي مشروع طه وين تربية داس أن قادنا إلهي نهاينا وافتشيو خيرك يوناجا وحويان أي لا هاي بشاس بركيسن oo dib dambe qofka anfacaya ilaahay hayna waafajiyo dad badan ayaa u istaagay inay afuriyaan dadka sooman oo masjidka saxaaba oo masuul ka ahaa alxamdulillah intaas oo qof ilaa 2,000 oo qof wax gaaraya ayaa ka faa'iideystay afuri walaalkaaga sooman shuruuci ahaa ee bisha ramadaan inoo soo bilowday meel fiican ayuuna ku dhamaaday dad aad u fara badan ayaana ka faa'iideystay masaajid baa qaar ku afurayeen qaar xarumo waxbarashay ku afurayeen qaar xaafaday ku afurahayeen intaasoo masaakiina oo aan afur haysanin ayaa ka faa'iideystay mashruucaas haddii kaasina uu dhammaaday mashaariicda kale oo khayriga ah oo ah masaajidda dhismaheeda iyo madaarista qur'aanka oo dhan ayadana waxa weeyaan alxamdulillaah way inoo socon doontaa khayrkaasna waa u istaagi doonaa wasala allaahuma calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin